السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو صنعوا شو عنا صابت قيمة قيا بدن waxaan soo gaarnay argumentani 14 qaybtiisa labaad barashada batanta biiga sida la socotaan hore waxaan u soo sameynay dhammaan argumentayaasha ka hooseeya kan 14aad tusaale kan koobaad ilaa kan 13aad qaybooda faafaynta iyo qaybooda quiz kan qaybtiisa faafaynta waa soo sameynay hadda quizkiisa noo socdo insha Allah binal kareem marka aan dhamayno argumentayaasha kale si xiga ayaan sameyn doonaa ilaa aan ka dhamayno 25 argument asla socono muuqaalka like noo saara adeeda wada maasintiin waxaan uga hadlaynaa precedence encroach okay kala mudnaanta iyo iskoosyada marka waa muhiim inaad fahantaan waayo maxaa la yiraahdaa qaybta imtixaanka inta badan su'aalahan way soo galaan nell'encroach rappresentato in figura il veicolo B non deve dare la precedenza ad alcuni veicoli. Allora nell'incrocio scosk rappresentato in figura mesh ku sawiran il veicolo B kan way moogtahay non deve dare la precedenza ad alcuni veicoli waxaan oo dhan inuu mudnaanta siimaha u dhah oo iska gudba false way sababtoo ah allora il veicolo B false way perché ko waxa baxayo kana baxayo secondo me poi waxa baxay maxaa la yiraahdaa e kadib b yaa u dhanbay false way okay. Nell'incrocio rappresentato in figura il conducente del veicolo B può concludere la manovra di svolta a sinistra dopo il transito del veicolo N. Allora il veicolo B può concludere wuxuu maxaa la yiraahdaa gabagabaynayaa marka uu gudbo veicolo N. Esatto, perché ko waxa baxayo maxaa la yiraahdaa B ya baxayo dhaxbartanku istaaga R ya baxayo kadib N ya baxayo kadib waxa u dambeeyo maxaa la yiraahdaa N okay kan kale nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli disimpegnano l'incrocio nel seguente ordine A e ko A baxayo A ku xigo kadib V waa inay ku xigtaa H no A markuu baxo waxa ku xigo E bene E markuu baxo V ya ku xigto G markaas waaye no H markaas waaye G oo dambeeyna secondo me false waaye okay. Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N passa dopo il transito del veicolo R okay. N wuxuu gudbaa dopo il veicolo R ma prima del veicolo A asaa ka hormarayo dhahay N wuxuu gudbaa R markay gudbto false waaye perché N uu dhaqaaqa dhaxbartanku istaaga R ya gudbaayo goodbye N gadaal dambe u xiraa okay marka false one. Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N deve dare la precedenza al veicolo R. N waa inay mudnaanta siitaa R N waa inay mudnaanta siitaa R vero okay. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura kan vero in figura il veicolo N waxa way midkan guduudku waaye passa dopo il veicolo R esatto perché ko waxa baxay B ya dhaxbartanka istaaga R ya baxay N markaas waaye esatto okay. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo A pasku waaye soma deve attendere il transito del veicolo O waa inuu sugaa dhahay vero perché ko trama baxayo O ku xiga A u dambeeyo vero okay. Nell'incrocio rappresentato nella figura il veicolo N transita dopo il veicolo S okay. N waxay gudbaysaa dopo il veicolo S prima del veicolo C esatto perché S ku gudbaayo N ku xiga C u dambeeyo okay. Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo H passa dopo il veicolo AEV. Allora il veicolo H ko waxa gudbaya A dhaxbartanku istaaga ya baxay V waaye kadib maxaa la yiraahdaa H V marka allora sugiya A E V poi H esatto vero waaye perché C u dambeys okay. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura i veicoli C e R transitano contemporaneamente hal mar ay wada gudbayaan
dopo il passaggio del veicolo A. Allora A markay gudubto dhahay GR hal mar ay wada gudbaan, GR ma hal mar wada gudbaan, false way. L aa soo baxay dhaxbartanku istaaga, R aa baxay, E aa ku xigo, okay, G waaye markaas secondo me GR non possono transitare contemporaneamente. Allora L markuu gudbo, R no, falso waaye, okay. Nella situazione rappresentata in figura il veicolo R deve attendere il transito del veicolo H. R waa inuu sugaa veicolo H. R waa kee midkaan oo maxaa la yiraahdaa veerdaha waaye, waa inuu sugaa H. Allora ko waxaa gudbaya no, false waaye, berke ko waxaa baxaya R, no, ko waxaa baxaya G aa baxayo, R aa ku xigo, A aa ku xiga, H u dambeeya. Marka R deve attendere il transito del veicolo H una cazzata waaye, okay. Nell'incrocio rappresentato nella figura i veicoli T e B possono transitare contemporaneamente. B maxaa waaye T e B, esatto, T e B, perché labadooda bidiritay u baxaan. T waa tramka, B-gana dhankiisa midig faaruq waaye, hal mar ay wada dhaqaaqeen. Nell'attraversare l'incrocio in figura il veicolo C e A, ok, passano contemporaneamente. C e A passano contemporaneamente dopo il veicolo L markay gudubto C e A hal mar ay wada dhaqaaqeen, esatto, vero. Nell'intersezione in figura il veicolo M transita per ultima. M oo maxaa la yiraahdaa bas ah, ultimo dhaqaaqa. Allora ko waxaa baxay tram markuu baxa midigta way faaruqaysaa oo midka biiga, بعدين M, esatto, vero, ok. Nell'incrocio rappresentato nelle figure i veicoli transitano nell'ordine T e B hal mar ay wada dhaqaaqeen, ok. Kadib A ultimina G, esatto, mujadin. Kan toos u baxa midig wax ka xigma la, tramna asigna toos u baxa markasta mudnaantaasaa leh. Labadaa markay baxaan A ku xigo midigtiis faaruq noqonays, G aa u dambeeya. Nella situazione rappresentata in figura il tram transita per primo, esatto, tram transita per primo, ok. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo C non deve dare la precedenza ad alcuni veicoli. C non deve dare la precedenza, falso, perché ko R baxayo, A ku xiga, C aa u dambeeya. Marka C non deve dare la precedenza, falso, perché deve dare tutte e due la precedenza, ok. Nell'intersezione di figura l'ordine di transito dei veicoli FRD, F co, RD no, RDFY, perché R midigtiis faaruq waaye asaa koo gudbaayo. Una volta che passato kanaa ku xigo midigtiisa, gaari kale ka xigin, kadib kanaa u dambeeya, okay. Nella situazione rappresentata in figura il veicolo H passa per primo. Allora H non passa per prima, ma prima waxaa baasaya midka guduudka autobus ay ku qoran tahay, maadaama toos u baxay midigtiisina ay bannaan tahay. Kadib autobuska kale oo H ku xigo, kanaa u dambeeya. Marka il veicolo H passa per prima, falso waaye, ok. Passa per secondo. Nell'incrocio rappresentato nella figura il conducente del veicolo A passa per ultima. Veicolo A passa per ultima, falso waaye, sababtoo prima waxaa dhaqaaqaya L maadaama midig waxba ka xigin. Kadib labadan passano contemporaneamente, kanaa u dambeeya. Marka kan passa per ultima, falso waaye, ok. Nella situazione rappresentata in figura il veicolo O waxaa waaye gaarigaas madow waaye, mogtahay, deve dare waa inuu siiya la precedenza mudnaanta al tram e del veicolo M, falso waaye, perché tram waa inuu siiya mudnaanta laakiin M asaa kale, ok. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli passano nell'ordine RCA, responsabilità civile auto, yeah? R gudbaayo waa la gartay, vero waaye, laakiin G next second ma, falso waaye, perché R markuu baxo kanaa ku xigayo oo midigtiisa gaari kale ka xigin, kanaa u dambeeya. Markaas wuxuu dhahay kanaa baxay, kanaa ku xigo, falso waaye, okay.
Nell'incrocio rappresentato in figura i veicoli transitano nel seguente ordine: BTS. Esatto, B goodbye ko maadaama midigtiisa gaari kale ka xigin. Okay, prima transita B, poi secondo T. Okay, maadaama kan uu dhaqaaqay inta faaruq ay noqonaysaa ultima S. Esatto. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A deve passare dopo il veicolo R. Il veicolo A waa inuu gudbaa dopo il veicolo R. Esatto, vero waay. Okay, sababtoo ko waxaa dhaqaaqaya R kadib A ku xigo, G ayaa u dambeeya. Si bene, insomma. Giungendo all'incrocio rappresentato in figura, il veicolo L deve passare per ultimo. Il veicolo L deve passare per ultimo perché? Allora, muxuu dhahay il veicolo L haddaan fiirinaynaa. Giungendo markaan galno incrocio in figura rappresentante in figura, il veicolo L deve passare per ultimo. L waa kan kow akaa baxay, D aa ku xigo, B aa ku xiga, L per ultimo. Esatto, vero. Okay, maadaama L toos u baxay, toosna dadkana midigtiisa wax ka xigaan sooma. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo E deve attendere il transito del veicolo R. Il veicolo E waa kana deve attendere, waa inuu sugaa ilaa ka gudbaayo kan. Esatto, sababtoo ah kow waxaa baxay kanaa baxay, S aa baxay maadaama midigtiisa kanaa xiga, laakiin dare precedence u jiro sooma. Signalka dare precedence ku dhegan. Kow S aa gudbaayo, A ku xigo, kadib E deve aspettare. No, falso è, perché E non deve aspettare, R che deve aspettare lui. Falso è, E deve aspettare R. No, falso è. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo B transita per ultima. P kan maano kow trama baxay waa la gartay, kadib kanaa baxay. Okay, labadan oo señal dare precedence meesha ugu dhegan, marka kee hormaray kanaa toos u baxayo oo midigtiisana faaruq noqonaysa labada markay baxaan. Kanaa baxay B marka ultimo waa transita per ultima. Esatto, vero. Okay, nella situazione rappresentata in figura, il veicolo T passa per prima. Allora T waa tram, passa per prima, vero waay, perché tram wuxuu isticmaalaa koronto iyo birta sida tareenka oo kale, marka precedence markasta saale. Okay, nell'incrocio rappresentato nella figura, il conducente del veicolo A passa per ultimo. Il veicolo A passa per ultimo. Vediamo saabqiima. Kow D aa dhaqaaqaayo, wuu gudbayaa, kanaa dhaqaaqaayo, davvero. Vediamo, vero. 50-50. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, passano per primi indifferentemente i veicoli B e D. B e D, questi qua, B e D. Perché cosa c'entra B e D? D aa gudbay, P aa ku xiga, B caadi markaas waa N. Falso, indifferent una kada. saacad qiimaha qaaya badan casharkeena saas ayaan ku dhamaynay. Hadda waxaan fiirinaynaa natiijada waa casharkeeni labaad argumenta 14aad qaybtiisa quiz-ka. Okay, hadda natiijadaan fiirinaynaa insha Allah. saxaabta qiimaha qaaya badan casharkeena saas ayaan ku dhamaynay. Hal su'aal aan qaladnay, su'aashaas fiirinaynaa midda ay tahay iyo sababtaan u qaladnay. Waa su'aasha shanaad. Nell'incrocio rappresentato nelle figure, il veicolo N. Ok, N waxaa way midkaas madowga. Deve dare waa inuu siiya la precedenza mudnaanta al veicolo R. Falso ay ahayd, perché kan midigtiisa faaruqa wuu soo dhaqaaqa, dhaxbartanku istaagayaa. Okay, dhaxbartanka maadaama uu istaagaya asaga ka hor dhaqaaqay, mudnaanta ma siinayo sooma, waayo midigtiisa faaruqa. Mar dhaxbartanka markuu imaado kanaa gudbaayo, kanaa ku xigo. Quindi la risposta era falsa, ana beenaan ku dhuftay. inta kale waan saxnay maasha Allah. waa argumenteeni 14aad ama 14aad qaybtiisa labaad. insha Allah argumentayaasha ilaa ka dhameeyno mistaagi doonaa. saad qiimaha qaaya badan muuqaalka like noo saara, waa idinkiyo garaadkiina.
waa mahadsantihiin guuleysta waxaan u balnaa cashirkeena xiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.